wararka saakay laga helayo gobolka Galgaduud gaar ahaan duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in deegaan u dhow saakay laga dareemayo xiisad dagaal oo u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed. Gabaldhicii shalay ayaa maleeshiyad hubeysan oo wata hub iyo gaadiid dagaal waxa ay yimaadeen deegaanka Gadoon iyagoo doonaya inay u argudaan qof iyaga ka mid ah oo kooxo hubeysan ay dileen. Dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo labada dhinac ee hubeysan, mana jirto waan lagu xalinayo arrintaasi oo hadda muuqata sida ay wararku sheegayaan. Qof ka mid ah dadka deegaanka oo Shabeelle la hadlay ayaa sheegay in walaac xooggan laga qabo dagaal halkaasi ka qarxa, isagoo intaasi hadalkiisa ku daray in labada dhinac ay helayaan gurmadyo xoog leh. aniga xagganaga wallaahi hadda intaan ka warqabno adigu waxba hadda nama gaarin. deegaankiyaana ku sugannahay, awalba difaacu nafsi baanahay. ilaa haddana waxa weeye wax khasaaro oo hadda soo gaaray. adeer waxa weeye kolleyba hadda xabadu hakatay. waxaana loo malay karaa inay hadda difaac isugu jiraan. waa adigu sida maaragta caadiga waa noqon kartaa. anigu hadda intaan ka warhayana sida difaaci loogu jiraa. walaalow meeshaas waxa weeye maaragtay ciidanka booliska Galmudugna gooba joog ay haayeen. oo hadda wax la qari kara ma ahayn sidii wax u dhaceen ayaga waxa weeye sharaxi kara. waa ma wiil la yiri wixii joogana waa marqaati wax hadda adigu mala iyo wax iska cad bay ahayd. ashaan Galmudug booliskeeda adigu muddo ku sugnaa jiray. in kasta la kaado ayagoo macnaha halkaas jooga ay macnaha ku kalsoonaa waayeen oo tiraam la'aan meeshan ka dhacday. hadda meesha ku dambaysa waa arki doonaa. walaal dagaalkaas maaragtay waa cudur oo rabaani oo tolka oo maaragtay labadan qabiil oo walaalaha adigu aan soo kala wajahay. dagaalkaas iskiisa u dhacay waxyaalaha dad dhimasho ah oo meesha meel degan ah jirtay. adiga bishii Soomaad abaari 20-kii meeshan waxa ku dhintay yar culimo ah oo la yiraahdo Gallad Siiqaadan Qorsool oo masaajidka ka ahay imaam ayaa meesha lagu dilay. maalmihii la soo dhaafay ayaa xiisad colaadeed waxa ay ka taagneed deegaanka Gadoon iyo deegaanada ku xiran, taasi oo u dhaxaysay laba maleeshiyo beeleed kuwaasi oo xiisadooda salka ay ku haysay dilal aanooyin qabiil iyo sidoo kale ceelbiyeedyo iyo dhul